maalin waxaa dhacday Cumar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu Allah karaali noqdo waa soo baxay wuxuu soo aaday qawraha Baqiic mar alla markuu qawraha soo gaaray wuxuu dhahay assalaamu calaykum ya ahla alqabuur markuu salaamay inta kadib wuxuu dhahay dadka qawrta ku jiro xoolihii aad ka soo tagteen waa la qaybsaday ilmihii aad ka soo tagteen way weeweynadeen naagihii aad ka soo tagteen waa la guursaday iniga xaaladiina marka maxay tahay iniga xaaladiina ii warma oo iiga sheekeeya ayuu dhahay Cumar radiyallahu ta'ala anhu mar alla Cumar wuxuu dhahay haday ii soo jawaabi lahaayeen waxay dhihi lahaayeen fatazawadu fa inna khayra zaati taqwa aday dhihi lahaayeen say fiican soo samayso ilaan maanta marka anaga safar aan aadayno dharkeeno dhan waan qaadanaynaa markaan diyaarada aan ku qorannahay dharkeeno dhan waa wada qaadanaynaa dad safar laga soo noqonayo uusan u jeedin oo kale ayaan iska dhigaynaa dharkoo dhan waan qaadanaynaa alaab waliba markaa guriinoo taalo waan qaadanaynaa sida markaa safarkaasi aan u galno walaalayaal safarka loo socdo waa safar khiyaamana marka aad iyo aad ayay markaa u dhibaato badan tahay qof waliba markaa camalkiisa ayaa loo qabanaa sida nebigu uu tilmaamay صلى الله عليه وسلم تسالو لما قضب عن سوقادنو وايو نبيك مركو كهدلاي نفط صالحة هذي او وناقسن او دين تعالى كد ذا شيء او مرع الله لأوامرتي إلهي قادتي سندي نبيك صلى الله عليه وسلم او قادتي نبيك آتي ايو مركا او وشيكي نفط هدي صالحة تهي والسو وذا ركبا خوره ذا قوضو مرع الله لمركي جناسة lagu soo dugto oo mandaarada la soo dhaxgeliyo waxay dhahaysaa khadimuuni war ididjiya maxalkeyga ciyo igeeya war meeshaan aad igu haysiin mahe ee qabrigeyga ciyo igeeya iyo iilkeyga mar alla markii qabriga la soo dhaxdhigo oo laga soo tago isna markii malag ayaa soo fadhiisinayaan laba malag ayaa soo kala fadhiisinayso waxaa la weydiinaa سدح سؤال أيا ما دام لويدينا من ربك ما دينك وما نبيك من خفك هدود انتو سدح أيا راعايو مهل كيسا إهل كيسا إيو عمل كيسا لبوانا يسو نقنايا لبوضا ما انت ألا درتيسا دين تيسا أن أغتغوينو وقت أن أباهي خبنا أين قصوتين حسدني مذودا وقت آتي آتان أغباهي خبنا هاي أين قصوتين